aniga waxaan ay gudoomiyaha ururka haweenka sidaydaba waxaan diidaa wixii qaldan waxaan qaataa wixii sax annagu waxaan u taaganahay oon maanta ka go'nay oon diidnay xukuumaddii axmed maxamed islaam axmed madoobe annagoo ah bulshada daawo qaasatan beled xaawo sidaan u soo ballaan baxlimaantood arkaysaan ma aanaan diidin jubbaland ma aanaan diidin dowladda magaceeda dowladda annagaa iska leh gobolka kale waa 7 degmo iyo wax ka badan kuma jira degmo ay shabaab haystaan waxaa xoreeyey oo abaabulay dib loo xoreeyo ma ahayn jubbaland wuxuu ahaa wasiir janan 7 degmo gobolka kale waa xor waxa xoreeyey waa asaga annaga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waa xukuumadeeni ma diidin mana qaadacay laakiin xoogaa qaniya aadna qabateen yaa naga qaynisiiseen qayladina waxaa waaye waa soo gabagaboolaysaa waxaan codsanaynaa anaa ku hadlayo magaca gabdhaha daawo anaa ku hadlayo inaad noo soo daysaan wasiirka amniga dowladda federaalkana waa taageersanahay waxaan baa ku dirayaa nimanka sheeganayo dowlad goboleedka Jubbaland oo gobolka u dhashay nimanka gobolka u dhashay oo hadda ku sugan magaalada Mandera yaan baa ku diraya waxaan leeyahay dadkiina soo raaca iyo kuwa ku harayba war meesha waxa ma yaalaan waa saaka waxa qudbaynaysa carab kullu way meesha waa isku dhamaata anigu sidayna wax hore naqanay wax dambaba dadkiina soo raaca hala tashado shirku meel buu ka bilaabi jiray meel lagu ku dhamaan jiray waxaan bogaadinaynaa in ummadda ay hore u socoto oo xaqiiqdi aan lahayn oo ka gobol ahaan iyo ka degmo ahaanba aan helno oo ka helno dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Prime Ministerkiisa Xasan Cali Khayre doorashada Kismaayo ka dhacday doorasho kama dhicin aftuuba ka dhacay dulmi baa ka dhacay ruwaayadu Axmed Madoobe sameystaa ka dhacay ruwaayadeedu halka ka dhacay doorasho ma ahaan arintaas shacabweynaha gobolka Gada ee Jubbaland iyo dadka Jubbaland oo dhan waxaan ma aragtay raalli ka nahay systemka dowladda federaalka ee wata Axmed Madoobe wuxuu sameeyay doorasho ma ahaan waxaa kaloo la hadlayaa mucaaradka Soomaaliyeed waxaad u orodeen oo ansixinaysan waxaanad ogtiin taas waa laga soo gudbay tiin hadda kadib fiiriyo marka xalaalaad rabtiin xalaalaad ansixinaysaan xalaalaad rabtiin Soomaa waxaad meel walba cadaalad taagintood ka hadlaysiin leeyihiin ee arinta doorashada laga hadlo jadwalka doorashada ma laga hadlo dadka doorashada ma saan la yeelo dowladda aniga doorashada ma ka hadasho aniga waxaad samaysaa ku taala Shariif Sheekh Axmed waxaad adiga samaysaa ku horyaano waxaad Jubbaland ka samaysaa ku horyaano Jubbaland way garanayaan adiga iyo Xasan Sheekh Maxamuud horena CV-giina waan garanaynaa waan soo xukunteen haddana waxaad noogu abaalgudeen Jubbaland waan garanaynaa goobtaas waa in haynaa haddii Jubbaland nahay kulay ma fiiraa idinkaba boqol ma tiino nagama soo raasanaysaan codna nagamaadan rabin Axmed Madoobe cod ka rabteen Axmed Madoobe waadiina ma qaadanayna isig hayn codeen Jubbaland ka dhacdaana waxbarashaan ka rabnaa waxaan ka rabnaa ma aragtay caafimaadaan ka rabnaa isboortiyan ka rabnaa garoomo in loo dhisaan rabnaa مشاريع دولة قبضة دولة فدرال كوديجان كان كجرة ما جرو هل مسوعة أو ديجان كان لقى قبطي أو حتى عن دولة حكومة هلا كينا ما جرو وحنا لنا عاصمة رنا وحنا دلنا سكولشيب رنا هنا هنا قبل كان كينا وكان كسومات كينا رنا وحنا ودوين كلا ديس وحنا قرامة دينا ديس عاصمات كلا هنا أريما بوشنا وحلا قبطه نظافته وحلا قبطه عاصمات وحلا قبطه بيها وحلا قبطه degmada balad xawo oo 7 kiiloomitir u jiro wariga iyo dam gurceel oo aan wari marin ayaa biyaha isku mid ay ka yihiin hadda ma fahanteen Axmed Madoobe wax badan 7 sano ayuu hortaagnaa gobolka Gadana waxba ma soo qabanin iska wadaaya wuxuu qabtay markay dowladda Soomaaliya ay noo timid oo wasiirkeena nagala xirtay oo muddo badan oo xirnaa hal qofna ma soo dirin hal wafti ma imaanin waxaan u sheegaynaa Axmed Madoobe waxaan u sheegaynaa ummadda reer Jubbaland way ku dhibsatay oo horbanay aan leenahay dadkii reer Gado ama degmada Balad Xaawo ku noolaa waxaa Soomaaliya ka dhalatay dowladda Soomaaliya ka dhalatay waa federalism waa federal madaxweyne leedahay ra'iisul wasaare Prime Minister leedahay waxaa la sameeyay Soomaaliya loo sameeyay gobollo annaga waxaan nahay reer Jubbaland taas ayada waa wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naga dhigay weeye waana deegaanka naga Ilaahay baa nama kaniyay alxamdulillah rabbil alamin waxaan ka soo horjeednay Jubbaland maaha waxaan ka soo horjeednay waxa weeye systemka Axmed Madoobe iyo dowladda hadda oo ismagacaabay xukuumaddiisa
anigu waxaan afayeenka ururka degmada Balad Xaawo maanta waxaan ku hadlayaa afka haweenka gobolka Gado waxa weeye qaasatan daawo annaga haddaan nahay gobolka Gado hal baan kala hal qof baan nahay waa dad israacsan oo shacab ahaan nahay annaga cudurkanaga iyo madax xanuunkana waa wasiir jaran nacaybka naguma jiro madaxweyne inaad qaniyada naga fujiso oo wasiirkanaga noo soo dayso si dhabaa kula shaqaynayna waa taaganahay qorraxdaas waxaan u taaganahay waa wasiirka madaxweyne waxaan rabnaa si dhaba inaad noo aragto si dhabana inaad noola shaqayso adiga iyo xukuumaddaada waa idin codsanaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirkan waa shir looga soo horjoodo madaxweyne axmed maxamed islaan oo muddo badan ummaddan soo maaragtay si khasaba ku soo hogaaminayay waxaan ka goonay ma aha Jubbaland iyo federalism waxaan ka goonay waxa weeye hoggaankiisaan ka goonay waxaan nacnay hoggaamintiisaan nacnay waxaan nacnay dib u dhiciisaan nacnay waxaan nacnay qabyaaladiisaan nacnay waxaan nacnay qarandiinimadiisaan nacnay saas markay tahay maalin dhaweyto markii wasiirkii nala ka qabtay qof kastoo dawladda wax ka sheegayaan kula daaran qaniyadaadna hayseen